Asalaamu calaykum saaxiibayaal, kusoo dhawaada channel Kariya Media. Maanta waxaan ka hadli doonaa 5 magaalo ee ugu dalxiiska badan qaaradda Afrika. Intaan muuqaalkeena u guda gelin, haddii ay tahay markii ugu horreysay channel soo booqato, fadlan channel subscribe saar. Qaaradda Afrika ayaa qaaradda ay malaayiin dalxiisayaal sanad walba boorsooyinkooda u soo qaataan si ay ugu dalxiisaan. Waxyaabaha soo jiita dalxiisayaashaas ayaa ah in qaaradda ay leedahay dhul aad u qurux badan oo isugu jira saxaro, xeebo, keymo, buuro iyo wabiyo iyo dhismooyin qadiimi ah. Qaaradda Afrika waxay qani ku tahay xayawaanada duurjoogta ah sida libaaxa, gariga, maroodiga, haramcadka, masaska kobraha iyo xayawaano kale oo qaas u ah qaarad lagu naanaysto dhulkii qaniga ahaa. Sidoo kale, qaaradda Afrika waxaa dega qowmiyado kala duwan, kuwaas oo ilaa hadda ku dhaqma dhaqamadoodii qarniyo ka hor. Dhaqamadaas oo soo jiita dalxiisayaasha ka kala yimaada dunida dacaladeeda. Dadka ku nool qaaradda Afrika ayaa ah dad aan isla weyneyn oo soo dhaweyn fiican, aadna u qadariya martida. Dabeecaddaas oo sababtay in dalxiiska qaaradda uu bato. Ugu dambeyntii, waxyaabaha soo jiita dalxiisayaasha waxaa qayb ka ah cuntada ay dadyooga Afrika cunaan, kuwaas oo dhadhan iyo ildoogsiba leh, taasoo keenta inay dalxiisayaasha u soo xiisaan ayna u soo noqnoqdaan qaaradda. Haddaba magaalooyinka sanad walba soo dhaweeya dalxiisayaasha ugu badan waxaa ka mid ah magaalada Cape Town ee dalka South Africa, taasoo leh buuro isku xirxiran, aadna u qurux badan, sidoo kalena leh jasiirado qadiimi ah kuwaasoo soo jiita dalxiisayaasha. Xeebaha Camps Bay iyo Clifton ayaa ka mid ah xeebaha ku yaala magaalada Cape Town. Xadiiqada Christian Park National Botanical Garden, taasoo ay ku yaalaan kumanaan dhir oo kala duwan, ayaa soo jiidata malaayiin dalxiisayaal ah maadaama ay tahay xadiiqada ugu qurxan qaaradda Afrika. Magaalada Marrakesh ee dalka Morocco ayaa ah magaalada labaad ee ugu dalxiiska badan qaaradda Afrika. Dhulkan qadiimiga ah, wadooyinka yaryar, suuqyada aadka u buux dhaafiya iyo barxadda Jimaa Alfina, taasoo ay joogaan majaajilistayaal iyo agtaro sameeyeen sarcadka, iyo xadiiqada Majorle iyo Minraa ayaa soo jiita indhaha dalxiisayaasha. Magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa ka mid ah magaalooyinka soo dhaweeya malaayiin dalxiisayaal sanad waliba. Nairobi National Park oo ah xadiiqad ay joogaan libaaxyo, gariyaal, maroodiyaal iyo xayawaano kale oo badan ayaa soo jiita dalxiisayaasha. Magaalada Cairo ee dalka Egypt ayaa magaalada afaraad ee ugu dalxiiska badan qaaradda Afrika. Daawashada Giza Pyramids oo ah xaramtii ay dhiseen dadkii reer Bani Israa'iil ayaa sababta ugu weyn ee dalxiisayaasha u soo booqdaan magaalada Cairo. Sidoo kale, magaalada waxaa ku yaala masaajidyo, dhismayaal iyo wadooyin qadiimi ah. Magaalada Zanzibar ee dalka Tanzania oo ah magaalada shanaad ee ugu dalxiiska badan qaaradda Afrika waa meel ay ku yaalaan xeebo soo jiidasho leh, kuwaasoo caan ku ah carrada cad iyo biyaha nadiifka ah. Xeebaha sida Ngabi iyo Kendra ayaa xeebaha ugu badan ee dalxiisayaasha booqdaan. Sidoo kale, magaalada waxaa ku yaala dhagaxaan qadiimi ah, wadooyin yaryar iyo suuqyo lagu gado xawaashyo qaas u ah waddanka iyo geedo lagu carfiyo cuntada. Sidoo kale, dadka reer Zanzibar waxay leeyihiin dhaqamo isugu jira dhaqamada reer Yurub, kuwa Afrika, Carabta iyo Hindida, maadaama ay dhammaan saameyn ku leeyihiin magaalada Zanzibar. Daawade, haddaba ma jeclaan lahayd inaad dalxiis u aado qaaradda Afrika? Mase kula tahay in dalka Soomaaliya ku soo muuqan doono liiskan sanadada soo socda? Daawad, haddii uu ka cajabiyey muuqaalkeena, fadlan like saar kuna soo biir channelka oo subscribe saar. Gambaleelka furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee warbixinadeena soo gaaraan. Mahadsanid.